shida ugu dambaysa markan AMISOM Soomaaliya ku sugan tahay waxayna u joogaan nabad ilaalin dhowr jeer waxaa dhacay shilal ay ku dhinteen dad shacab ah oo Soomaaliyeed oo kamid ah waliba kuwa la sheegay iyaguna inay amaankooda sugayaan maxaa adinka baarlamaan ahaan maadaama iminka baarlamaankii tobanaad ee cusub aatiin idinkaga qorshaysan joogitaanka AMISOM iyo dhisidda ciidamada Soomaaliyeed ee Soomaaliya yeelato lagaga maarmaamso waxa weeye su'aashayda hore unba tan ka jawaabaysa waxa weeye ciidanka yaga oo dawladda ah haddii ay shacabka waxyeello u geystaan shuruuc iyo xeerar baa ka jira ciidanka African Unionka ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga haddii ay shacabka wax u geystaan iska daaya xoolaha haddii wax u geystaan waa dhacday qolo Ugandese oo airportka agtiisa ilaalinaya habeenbar geelkii Muqdisho lagu qalayay oo ku soo duday ma garat oo markaasay moodeen dad ku soo yaacaya markaasay xabad kala daaleen waa la magdhabay waxa weeye waa geelu qiimihiisana waa la yaqaanaa xoolaha bay iska bixiyeen ma garat dad hadday dilaanna waxa weeye haddaan anagu oo ciidankaygu dad dilo sida loola macaamilo ayaa loola macaamilaa waxa weeye ogaan looma dilin oo waxa weeye ciidankan xamar uma joogaan inay shacab Soomaaliyeed dilaan shaqay u joogaan dawlad baa jirta ciidan baa jira hay'ado la shaqeeyaa jira xeerar baa laga dhigtay waxa weeye dad ay waxyeeleeyeen oo aan laga magdhawin waxa weeye ma dhacdo waa hagaag laakiin war ka soo baxay madaxda AMISOM waxa ay sheegeen si gaar ah inay iyagu ula xisaabtami doonaan kii marka dawladda shacabkeeda ka saarnaa xaq ugu dambeeyay dawladdu wixii ay geysato ayadaa ka magdhawda AMISOM xeerkii standardka ahaa ee yaalay ee ciddii wax geysato waxaan ku leeyahay haddii oo neef ariya ay wax gaaraan waxa weeye xisaabtan baa ka jira ma garat meesha hadduusan jirin intention of harm inay ogaan iyo si ula kac ah ay wax u geysteen haddii taasi dhacdana shuruucda ciidanka lagu qaadaa ciidan baa la xirxiray ciidan baa waxa weeye la toogtay ciidan baa mutiny sameeyo amar diida sameeyay oo la toogtay oo Ugandese leh oo Burundi leh oo Kenyaati leh ayaa dil lagu xukumay waa la socotaan Uganda yani waxyaabaha ka dhaca dambiya la geystaa qaar baa hub iyo wax gadgaday qaar baa dhib geystay waa la xirxiray 30 sano qaar ku xukuman generaallo wada waxa jira xirxiran marka arrinkaas yani xabadda ama baabuurka oo Soomaali wato Soomaali jiira iyo baabuurka oo Ugandese darawal ka yaho Soomaali jiira waa accident labaduba waa waxa weeye waa dil oo midna ma aha xalaal midna xaraan ma aha oo AMISOM ajnabi nin ah oo Soomaaliya jooga ayaa wiil dardaray in issue intaas laga dhigo waxa weeye baabuur baa dardaray qof oo bini aadam ah ma garat kana insaan way bini aadam ah baabuur ku waday waxa dhintayna waa qof insaan ah way oo issue-ga oo inta looga dhigaya idinkoo Soomaali ahba dad Kenyaatiyaad ku dardartaan halkale laakiin gudoomiye way soo laabatay marka dad lagu laayay masaakiina iminka gaari baa la dulmaray dad shacab waday oo Muqdisho u socday soo idin ma saameynaysa laftiga wax oo excessive ah haddii ay dhacdo baarlamaanka iyo guddigiisa difaaca ayaa meeshaas taga ciidamada oo qalabka sida iyo waxa weeye dadka u xilsaaran mechanism ayaa AMISOM leedahay ciidanka dawladuna uu leeyahay oo waxa weeye disciplineka iyo maaragtay amniga ciidamada ilaaliya laftigooda baaritaan baa la sameeyaa waxa weeye wixii ka soo baxana siday tahay baa looga hadlay 10 qofkii baska gaariga lagu mariyay sida idin saameysay ku geeriyootay arrintaas waxa weeye waa specific incident ma garat waxa weeye waxaan kuu sheegayo weeyaan oo aan ku leeyahay baabuur oo ay dad waxa weeye Kenya u dhashay ay saaran yihiin hadduu nin Soomaaliya gadiyo waxaan oo war ah ma dhacdeen so why it's yani ay the issue u tahay nin oo ajnabi ah ayaa Soomaaliya dambi ku galay hadduu dambi ku galay haddii ay intentionku uu soo baxo inuu qofkaasi waxa uu sameeyay uu intentional u sameeyana sharcigii u yaalay baa lagu qaadaya haddii ay tahay recklessness ama qayru mas'uulnimo hadday tahay waxa weeye manslaughter baa lagu qaadaya haddii negligence
ay tahay ya waxa weeye ciqaab oo xarig ah ayuu yeelanayaa haddii uu ay accident tahay ya waxa weeye ganaax iyo wixii lamid uu yeelanayaa waxa shuruuc baa u wada qoran bagarat ya African Unionka la sheegaya waa ka mid baan nahay ya oo waa annaga ka mid ah waxa weeye ciidamadana dalka iyaga inay joogaan sharci iyo qaanuun ayay ku joogaan oo UN-ka Security Council-kiisu baasgareeyay African Union Peace and Security Council-keedu baasgareeyay baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumaddiisu ay baasgareeyeen shuruucda oo Burundi ya uu ku joogo ama ay Sierra Leone ay ku joogaan ama oo waxa weeye Afghanistan lagu joogay ayaa Soomaaliya lagu joogay peacekeeping-ka ahaa marka qof ajnabi ah ayaa khalad sameeyay buunbuunintaasi it's playing into the hands of Al-Shabaab waxa weeye waa arin Al-Shabaab u danaynaya oo waxay ayagu sameynayaan ya ka dhigaya wax caadi ah waa Soomaaliya waa inuu maanta hotel dayax ay qarxiyeen oo 40 qof ku dileen bagarat ya caadi ka dhigaysa laakiin se hadduu nin oo Uganda ka yimid baabuur waday oo ari carbeed dardaro ya idinkoo dhan idinka wada qaylasiinaysa